أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بن يوسف الثقفي وعاد قرنيسان أمير كأها دولك العراق دولدي أمويين تحلي هذا يويل ير وكذا شيء بني هاشم. حجاج وحا أبتيال وهارير بني أمية ومعاوية وكذا شيء wiilkan yarna wuxuu istirahaan ka soo jeeday reer bani haashim oo cali bin abi taalib uu ka dhashay dagaalna uu ka dhaxeeyay labada qolo. qisadu waxay ku bilaabanaysaa xajaaj bin yuusuf al-thaqafi. xajaaj bin yuusuf al-thaqafi ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu aaday inuu soo ugaarsado. waxa u baxay ugaarsi. حجاج بن يوسف الثقفي waxaan niri waxa uu baxay ugaarsi si uu u soo ugaarsado ugaar. ninkii xajaaj ahaa markii uu banaankii magaaladii ka tagay wuxuu arkay wiil yar oo gacanta ku haya 9 ay xarga ay ku xiran yihiin. 9 ay xarga ay ku xiran yihiin ayuu gacanta ku hayay wiilkii yaraa. xajaaj wuxuu soo dul istaagay wiilkii yaraa 10 jirka ahaa eeyaha xargahooda gacanta ku hayay. wuu soo dul istaagay su'aal buu weydiiyey. wuxuu ku yidhi wiil yahow maxaad samaynaysaa? wiilkii yaraa intuu kor u eegay buu wuxuu yidhi waxaad ii sidaa war aanan ku farxin. waxaad igu eegtay indha dadka lagu liido. waxaad igula hadashay hadal isla weyni ku jirto. hadalkaagu ruux isla weyn ayuu u egyahay, caqligaagana caqli dameer ayuu u egyahay. xajaaj wuxuu yidhi ima garanaysid miya? wiilkii yaraa wuxuu yidhi wejigaaga madowgiisa ayaan kugu gartay markaad hadal igu bilowday adigoon i salaamin. xajaaj wuxuu yidhi war hooge soo ma ogid inaan xajaaj ahay? wiilkii yaraa wuxuu yidhi ilaahay gurigaaga ma soo dhoweeyo, martidaadana ilaahay kuuma sooro hadal badnidaa oo karaamo darnidaa. xajaaj hadalkii intuusan dhammayn wiilkii yaraa uu kortaagnaa isagoo dultaaganoo hadalkiina uu dhex socdo unbaa askartii waardiyeynaysa xajaaj bin yuusuf al-thaqafi soo kala carartay. waxay yidhaahdeen taliye hadal waan ku maqlaynaaye na amar waan samaynaynaaye. xajaaj wuxuu yidhi wiilka yar ii qaada. hadalkiisii aad buu ii xanuunjiyey. ii kaxeeya qasrigayga meel ka mida iigu xidha. wiilkii yaraa bay kaxeeyeen qasrigii bay meel ka mida ku xidheen. xajaaj wuxuu iska soo dhammaystay ugaarsigii. waxa uu ku soo laabtay qasrigiisii. markii uu kursigii fadhiistay buu wuxuu ku yidhi ii soo saara wiilkii yaraa. wiilkii baa waxaa la keenay qasrigii xajaaj uu ka talinayey ee ay fadhiyeen wasiiradii iyo ciidamadii kuwii ugu sarsareeyey. wiilkii yaraa markuu meeshii soo istaagay wuxuu yidhi assalaamu calaykum. salaamtii wax ka celiya ayuu waayey oo ka radiya. markaasuu dhinacyaha intuu eegay buu wuxuu ku jawaabay hadalladan soo socda: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. saddexdaa aayadood buu ku dul akhriyey. wuxuu yidhi meel walba waxaad ka dhisaysaan calaamad oo guriga xajaaj uu degan yahay quruxdiisii iyo sida uu muraayadaha u yahay ayuu la yaabay. markaasuu wuxuu yidhi watattakhiduuna masaanica warshada ayaad dhisanaysaan lacallakum takhluduun sida inaad adduunka ku waaraysaan. waidaa badashtum haddaad ruux qabataan aad rabtaan inaad xukuntaanna badashtum jabbaariin dad madax adag oo xadgudbay idinkoo ah ayaad dadku qabanaysaan. xajaaj sidaa ayuu kursi ugu jiifa gadaalgadaal wuu soo fadhiistay. dadkii meesha joogay ilmo dhowrahoo ka mid ah ayaa wiilkii yaraa waxay ku yidhaahdeen wax adaba ma lihid. amiirka markaad u soo gelaysay salaan u qalanta ma aadan salaamin. soo ma ogid inaad amiirka ciraaq gurigiisa ku jirto maad si fiican u salaantid? wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaad tihiin digada dameerka.
إن أن سلامت نوعاسي كسلامو حجاج وحا ديدي وأن دالي بويري ودنير بإسو مريان جرنجروين ديرنا وإسو سارين مركان قريقا قصرقا سوقليي سلامت آدوني إنسان قروح بدن إن أن كسلام حجاجنا وحن كسلام يا أمير المؤمنين يا أصحاب تيسا أمير المؤمنين يا أصحاب تيسا أيام كسلام يا ووحو أولجينا علي بن أبي طالب يا أصحاب تيسي أي أولجيني حجاج وحو يري ويلكي والسؤال ويدي وحو يري ما أنت وحا تمد ويري ويلي يهو أجشاري قيريدا دي باسو دواتي فجد نرشي الدنيا آت كلها إذا تسين ولا طويل دائر بعد تهينا ويبعبعضي ويلكي يرا وحو يري حجاجو أجشيدا هديق عنت هذا كجرتو هذا الكاغا إمدي بيو وحير إي وحبذا واحد يقتل هذا مدي بسنيو ويلاشي ماشي فديا قاركود با waxay yiraahdeen jahligaaga ila daradaada waxay ka gaartay khabiis iyo xunka ah amiirul muuminiin ina sida ula hadasho sida caruurta facaaga aad ula hadlayso miya adab marihid bay dhaheen fiiri qofka aad la hadlayso si adab iyo usluubna ugu jawaab ixtiraamna u samee waa amiirka Ciraaq iyo Shaam wiilkii yaraa wuxuu yiri ma maqal miya buu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisi ma idan maqal miya soo ilaahay ma dhihin يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون نفو البقية اسدوديس صلى ما دهين aniga isu dooday dhaafa xajaaj baa marka wiilkii hadal ku bilaabay oo wuxuu ku yiri hadalkii hadda aad lahayd yaad ula jeeday salaanti gaarka ahayd oo hebel baan salaamaya yaad ula jeeday wuxuu ku yiri waxaan ula jeeday amiirul muuminiin baan ula jeedo Ali bin Abi Talib baan ka waday Ali bin Abi Talib iyo asxaabtiisii baan ka waday adigana wuxuu yiri xajaaj hadii lagu dhigi lahaa salaanta noocaasi qof salaam yaa salaami lahayd xajaaj bin Yusuf al-Thaqafi wuxuu yiri Abdulmalik ibn Marwan baan salaami lahaa oo Abdulmalik markaasi waa reer bani Umayya waana boqorka markaa tarinayo xajaaj uu ka amar qaato wiilkii yaraa wuxuu yiri ma Abdulmalik faajirka ah lacnada Allah ku dhacday tii malaa'ikta iyo tii dadkaba ku dhacday markaas ayaa salaamaysa xajaaj wuxuu ku yiri maxaad u tiri Abdulmalik faajir maxaad u tiri wuxuu yiri khalad yar uu galay baa muslimiin badan dartiisa loo baabi'iyay dadkii meesha fadhiyay wasiiradii iyo dadkii xajaaj la joogay xilka meesha qayb ka hayay qaar kamid ah ayaa waxay yiraahdeen xajaajow wiilkan dil maxaa dhacay taacadii amiirkii in la adeecay rabay wuu ka baxay jamaacadii in lagu dhaxjiro la rabayna wuu ka dhaxbaxay oo dadkii isku duubnaa banaanka ayuu ka taagan yahay Abdulmalik ibn Marwan wuu aflagaadeeyay marka in la dilo ayaan ku xukunay wiilkii yaraa wuxuu yiri xajaajow dadkan kula fadhiya adab u yaal waa dad jaahiliina waxa aan ahay ma fahmayaan xajaaj baa dadkii wuxuu ku yiri aamusaani isaga isu keendaaya xajaaj baa wiilkii wuxuu weydiiyay wuxuu ku yiri ma garanaysaa walaalkay xajaaj waxa walaal la ahaa nin sidiisa kale u dhib badan oo Yaman mas'uul ka ah marka wuxuu yiri ma garanaysaa walaalkay wiilkii yaraa wuxuu yiri haa walaalka waa Fircoon markuu nabi Muuse u yimid iyo Haaruun wada socdo si arshigii ugu fadhiyay sagas ay ka uga qaadaan dadkii la fadhiyay buu la tashaday adigana Fircoon baa walaal kula oo kuwan kula fadhiyay ayaa la tashanaysaa xajaaj wuxuu yiri qoorta ka gooya marba hadii Fircoon la sheegayba wuxuu yiri qoorta ka gooya ruqaashi nin la yiraahdo waa xajaaj ka agdhow wasiirada ugu dhow ah baa intuu xoogaa wiilka yaraa u naxay buu isiri wiilka yar hadii qoorta laga gooyo da'dan yar waa ilmo yare bal badbaadi markaas wuxuu yiri amiirul muuminiin oo xajaajow ilaahay ha ku gargaaree inaadan wiilka dilin isku day aniga isii buu yiri aniga barbaarinayo tarbiyeynaye isii xajaaj wuxuu yiri kaxayso ilaahayna kuma barakeeyo wiilkii yaraa sida adoon amal lagu gurgurtamaya kaxayso ilaahayna kuma barakeeyo wiilkii yaraa wuxuu yiri uma mahad celinayay buu yiri kii ibixiyay iyo kii la isiyay midna uma mahad celinayo xajaajo wax isiyo qaadad yiri iyo kii qaadanaya labaduba mahad iguma laha ruqaashigii wiilkii yaraa u turayo inuu kaxaysto rabay baa wuxuu yiri wariyaa sideed u hadlaysaa inaan geeri ka badbaadiyo ayaan doonayay adigana hadalkan miyaad igula hadlaysaa intuu yiri buu xajaaj eegay buu yiri amiirow ma doonay inaan kaxaystee waxa doonto ku samee xajaaj marka wuxuu yiri wiilyahow dhageyso wadankeed ka timid wiilkii yaraa wuxuu yiri Masar baan ka imid xajaaj wuxuu yiri magaaladii faasiqiintii baad ka timid miya dhul faasiqiin baad ka timid wiilkii wuxuu yiri maxaad ugu magacowday magaalada faasiqiinta xajaaj wuxuu yiri biyaheedana waxa lagu cabaa weelal dahab ah
dumarkeeduna magaalada aad ka timid waa dumar heesaha ciyaaro oo meelaha ku boodboodo naylka webiga nayl ee dhaxmarana waa webi cajiib ahoo dadku ay la yaabaan ehelka degan masarna cajab ma aha carabna ma aha wiilkiina wuxuu yidhi haddaba anigu magaalada kama iman la soco xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi ahlu khuraasaan baan ahay dhulkii muslim iyo bukhaari ay ka soo baxeenoo iiraan iyo afghanistaan dhulkaa ayuu sheegtay xajaaj wuxuu yidhi min sharri makaan meel lala yaabo shar badan baad ka timid diinkuna ku yar yahay wiilku wuxuu yidhi maxaa sidaa u tiri xajaaj wuxuu yidhi waa dad cajam ah oo aan carab ahayn oo cajam ah weeye waa sidii xoolaha ariga iyo lo'da iyo geeloo kale weeye hadalkooda wuu culusihoo lama karo midkooda qaniga oo hantida lehna waa bakhayl wiilku wuxuu yidhi haddaba anigu magaalada kama iman xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi dhulka shaam ayaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid dhul fiican le'anna dhulkaa isaga uu dhul fiican ku tilmaamay waa dhulkii mucaawiya looga gargaaro markuu cal la dagaalamayay wuxuu yidhi waxaad ka timid dhul fiican laakiin meelan ka nibcahay aniga ma jirto waa meel dadka ka yimaada jidhkoodu uu adag yahay wiilku wuxuu yidhi haddaba anigu meesha kama iman xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilkii wuxuu yidhi yaman baan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid magaalo dadkeeda aysan kasaynin haddii ixsaan loo sameeyo waa mahadsan tahay waa walaalkiisa ayaa ka taliya wiilkii yaraa wuxuu yidhi maxaa sidaa u tiri xajaaj wuxuu yidhi codkoodii wuxuu yidhi wuu mac yahay hadalkooduna wuu jilicsan yahay midkooda caqliga badanna wuxuu isticmaalaa miyuusiga iyo heesaha kan jaahilkana khamriga ayuu cabbaa wiilkii yaraa wuxuu yidhi anigaa ka mid ma ahi haddaba kuwaa xagga kama dhalan xajaaj wuxuu yidhi xaggeed ka timid wiilku wuxuu yidhi reer maka ayaan ahay xajaaj wuxuu yidhi waxaad ka timid kuwa shar badan oo jaahiliin ah caqligoodu yar yahay dhul ay ku nool yihiin baad ka timid wiilkii yaraa wuxuu yidhi maxaa sidaa u tiri xajaaj wuxuu yidhi waa qolo ilaahay uu nebi wanaagsan ka soo dhex saaray nebigii bay beeniyeen wayna eryeen qolo ayaa ilaahay ku badbaadiyey oo ilaahay uu ku soo dhoweeyey nebiga isaga ah jeclaaday karaameeyey wiilkii yaraa wuxuu yidhi haddaba anigu meesha kama iman xajaaj wuxuu yidhi jawaabahaagu waa igu bateen qalbigayga wuxuu ii sheegayaa inaan ku dilo wiil yahow inaan ku dilo wiilkii yaraa wuxuu yidhi geeridayda hadday gacantaada ku jirto adigaa ma ku caabudi lahaa ee xajaaja waxaad ogaataa aniga inaan ka imid magaaladii rasuulka inaan ka imid ogsoonow madiinatulmunawara inaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi magaalo wanaagsan baad ka timid dadka deggan waa ahlu iimaan waa dad wanaagga jecel ee qabiilkeed ka dhalatay qabiilka aad ka dhalatay ii sheeg xajaaj wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaan ka dhashay reer la yidhaahdo bani khaalib ayaan ka dhashay oo isir ahaanna uu ka dhashay cali bin abi aalib nasab walboo adduunkan ku abtirsado qolana wuu baaba'aa nasabkanagii mooye haddaan annaga nahay reerka nebiga ma baaba'ayno ilaa maalinka qiyaamo waan jiraynaa xajaaj intuu carooday aad u carooday buu yidhi wiilkan madaxa ka gooya dadkii meesha fadhiyey baa waxay yidhaahdeen xajaajo waa wiil yara in la dila ma mudnee maad iska daysid xoogaha iyaguna caatifadan oo dhinacan rasuulka iyo familkiisu way qaaday xajaajna way ka baqayaan xajaaj wuxuu yidhi maya khasab waxaa ah in la dilo wiilkan xitaa hadduu samada ka dhawaaqo ruux dhawaaqaya u yidhaahdo yaan la dilin oo wuxuu ula jeedaa malag xataa hadduu ilaahay soo diray yidhahdo wiilka yaan la dilin wiilka in la dilo waa qatar wiilkii yaraa wuxuu yidhi nebi ma tihide yaa samada kaaga dhawaaqayo xajaaj wuxuu yidhi oo inaan ku dilo hadda yaa iga kaa hortaagan ayuu xajaaj wiilka weydiiyey wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaana kala taagan inaad i disho ee ruuxa qalbiga iyo ruuxa kala dhexgala waa ilaahay buu ula jeedaa allaha kala dhexgala ruuxa iyo qalbigiisa ayaa aniga iyo adigana inaad i disho iga kaa celinayo xajaaj wuxuu yidhi ilaahayga aad sheegayso isaga ayaa igu kaalmaynaya aniga inaan ku dila adiga wiilkii yaraa wuxuu yidhi maya ilaahay kuguma kaalmaynayee shayddaankaaga ayaa kugu kaalmaynaya inaan aniga idisho ee ilaahay baan ka magan galay adiga iyo shayddaankaagaba xajaaj wuxuu yidhi wiilyow waxaan ku arkaa jawaabtaadu inay fara badantaho aad iigu jawaabayso ee wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa ruuxa wuxuu alle ugu dhowaan kara ma ii sheegi kartaa wiilkii yaraa wuxuu yidhi haa ilaahay waxaa loogu dhowaadaa
soomka iyo salaada zakada iyo xajka ayaa ilaahay loogu dhowaadaa xajaaj wuxuu yidhi aniga ilaahay waxaan ugu dhowaanayaa dhiiggaaga sababtoo ah waxaad i tiri waxaan ahay ilmihii xasan iyo xuseen faracoodii baan ahay soo ima aad dhihin haa inaan aniga ku dilo daan ilaahay ugu dhowaanayaa oo xasan iyo xuseen iyo faracaasi ayuu aad u nabcaa xajaaj bin yuusuf athaqafi wiilkiiraa wuxuu yidhi isagoon cabsi iyo argagax midna ku jirin aniga waxaan ahay buu yidhi owlaaddii rasuulka ayaan ahay sala allahu calayh wasalama ajashayda iyo geeridayda hadday gacantaada ku jirto shayddaankaagii ayaa yimid buu yidhi si uu aakhiradaada u fasahaadiyo ayuuna kugu yimid oo inuu aakhiro kaa fasahaadiyo ayuu doonayaa wiilkii yaraabaa ku jawaabay oo xajaaj baa wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi ma waxaad leedahay owlaaddii rasuulka ayaan ahay oo geerina waad necabta waad ka baqaysaa miya wiilkii wuxuu yidhi mayo ilaahay sooma dhihin walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaagka isku gelinina ilaahay sooma dhihin xajaaj wuxuu yidhi yaa ku dhala wiil yahow ii sheeg wuxuu u raadinayaa hadallo inuu wiilka wax un ku daayo markaasu wuxuu yidhi yaa ku dhala wiil yahow wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay hooyo iyo aabbo ayaa i dhalay hooyo iyo aabbo unbaa i dhalay xajaaj wuxuu ku yidhi xageed ka timid wiilkii yaraa wuxuu yidhi dhulkan ballaaran oo ilaahay abuuray meel ka mid ah ayaan ka imid xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa wiil yahow carab yaa u karaamo badan carabta reerka ugu deeqsinimo badan ee wax bixinta badan yaa weeye wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu tayi qabiil la yidhaahdo ayaa carab ugu deeqsinimo badan xajaaj wuxuu yidhi maxay deeqsinimadaa banuu tayi iyo karaamadaa ku gaareen wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaa ka dhashay xaatimul asam ninka la yidhaahdo ayaa ka dhashay xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u sharaf badan haddaba qabaa'ilkii buu soo tirinayaa carab yaa u sharaf badan wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu mudar baa u sharaf badan qabiilka banuu mudar la yidhaahdo ayaa u sharaf badan xajaaj wuxuu yidhi maxay sharafta ku gaareen wiilkii yaraa wuxuu yidhi nebi moxamed sala allahu calayh wasalama ayaa ka dhashay qabiilka isaga ah xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u geesinimo badan qabiilka carab ugu geesinimo badan ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu haashim baa u geesinimo badan waa jilibkii nebiga uu ka dhashay sababtoo wuxuu yidhi banuu haashim geesinimo waxay ku gaareen cali bin abi aalib baa ka dhashay xajaaj wuxuu yidhi carab yaa u nijaasaysan qabiil ahaan qabiilka ugu nijaasaysan uguna bakhaylsan uguna khayr daran waa qabiilkee wiilkii yaraa wuxuu yidhi banuu haqiif qabiilka yidhaha reer bani haqiif ayaa ugu nijaasaysan oo ugu bakhaylsan ugu khayr daran sababtoo ah adigan xajaaj ayaa ka dhashay buu yidhi xadiidka nebigana wuxuu noo tilmaamay reer banuu haqiif waxaa ka soo bixi doona namruud baa ka soo bixi doona iyo beenaalayaal beenaaluhuna musaylime ayuu ahaa oo nebinimo sheegtay nabruudkuna waa adiga ayuu yidhi oo dadka iska baabi'inaya xaqooda iyo dhiiggooda iska baabi'inayo xajaaj intuu caroodo aad u xanaaqay buu wuxuu yidhi madaxa ka gooya dadkii meesha fadhiya waxay yidhaahdeen wiilku wuu yaryahee iska daa xajaaj intuu caradii xoogaa isu yara dejiyey ayuu wuxuu ku yidhi geelaagii geesaha lahaa xaggeed kaga soo tagtay geeli geesaha lahaa ee aad raacaysa wiilyow xaggeed kaga soo tagtay wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaan kaga soo tagay buu yidhi geeli geesaha lahaa waxaan kaga soo tegey isagoo daaqaya geedka la yidhahdo suwaan caleemihiisa waa geedan caleemo dhalino qodxo keliya leh ayuu u tilmaamaya wuxuu leeyahay geedka suwaan caleemihiisa isagoo daaqaya ayaan ka soo tegey xajaaj intuu qayliyeybu wuxuu yidhi waryaa waxyahu caqliga aan lahayn maskaxdiisuna ay maqan tahay geedka suwaan miyaa caleemo leh geedka suwaan miyaa caleemo leh wiilkii yaraa wuxuu yidhi xaggeed ku aragtay geel geesa le adna waa adiga i weydiinaya geelaaga geesaha lahaa xaggeed kaga soo tagtay geel geesa le xaggeed ku aragtay markaad geedka caleenta aan layn caleen u diidaysid xajaaj wuxuu yidhi wiil yahow qur-aanka ma xafiday wiil yahow qur-aanka ma xafiday wiilkii yaraa wuxuu yidhi qur-aanka miyaa iga cararaya markaan xafidayo isagaa iga baxsanayo markaan xafidayo xajaaj wuxuu yidhi qur-aanka ma kulmisay oo ma uruurisay wiilkii yaraa wuxuu yidhi markaan uruurinayo qur-aanka miyaa kala daadsanaa qur-aanka miyaa kala daadsanaa markaan uruurinayo xajaaj wuxuu yidhi ima fahmin su'aashayda miya wiilkii wuxuu ku yidhi waxaad itidhaahdaa buu yidhi aad ii weydiisaa qur-aanka ma akhrisay mana fahantay dheh buu yidhi sidaa su'aasha ii weydii
xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa qur-aanka aayadda ugu weyn bal ii sheeg waxaadna ii sheegtaa qur-aanka aayadda ugu xukunka dheer xukunka markii la yidhahdo qur-aanka aayadda ugu xukunsan ii sheeg qur-aanka aayadda ugu cadaaladda badan ii sheeg qur-aanka aayadda markii la akhriyo ugu cabsida badan ii sheeg qur-aanka aayadda markii la akhriyo ugu rajada badan qofka bini aadamka rajada gelisa ii sheeg waxaad ii sheegtaa aayad qur'aan ah oo 10 calaamadood oo cadcad ilaahay calaamadaha lagu garanayo ay ku jiraan ii sheeg waxaad ii sheegtaa aayad ay ku jirto been ay sheegeen ilmo nebi uu dhalay iyo aayad ay ku jirto run ay sheegeen yahuudda iyo kirishtaanka iyo waxaad ii sheegtaa aayad ilaahay hadalkiisa uu ku jiro isaga uu isaga hadlay waxaad ii sheegtaa aayad malaa'igta hadalkeeda ay ku jirto waxaad ii sheegtaa aayad hadalka ahlu jannaha uu ku jiro waxaad ii sheegtaa aayad hadalka ahlu naarkana ay ku jiro waxaad ii sheegtaa aayad ibliis hadalkiisa lagu sheegay wiilkii yaraa wuxuu yidhi dhegayso wuxuu yidhi aayadda ugu weyn ee qur-aanka ku jirto waa aayatulkursi aayadda qur-aanka ugu xukunsanna إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي aayadda qur-aanka marka la akhriyo ugu cadaaladda badan waa فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره cadaaladda ayay tilmaanto qof walba wuxuu la yimaado baa loo miisayaa aayadda wuxuu yidhi qur-aanka ugu cabsida badan waa aayadda ilaahay uu ku sheegay أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ayatamacu ma wuxuu rajaynayaa kullu mri'in qof walbo idin kamida oo minhum gaala kamida an yudkhala jannata naciim qof walbo gaal adduunka joogo ma inuu janno iska gala ayuu doonayaa ayadda ayada ah ayaa aayadda ugu damaca wanaagsan ah wuxuu yidhi aayadda ugu rajada badan ruuxa markii uu rajo uu doonayana inuu akhriyo laga rabo waxay tahay aayadda ilaahay قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم oo ah adoomadayda xadka gudbay waxaad u sheegtaa inaysan ka quusanin naxariistayda ilaahay dembiyada oo dhan wuu dhaafaa aayad ay ku jirto 10 calaamadood oo lagu garanayo calaamadaha ilaahay lagu garanaya ah waxa weeye buu yidhi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب oo micnaheedu ay tahay samaawaadka 7 ah iyo 7 dhul waxa ku jirta iyo waqti habeenka isbedbedelkooda iyo maalinka aayada ilaahay lagu garanayo oo waxa uu sheegay 7 cir iyo hal dhul oo 8 ah iyo habeenkii iyo maalinkii 10 kaga dhigay ayaa lagu sheegay quraanka wuxuu yiri aayada ay ku jirto been ilmo nabi ay sheegaan waa aayadii nabi ilaahi yuusuf walaalihiisii markii ay ceelka intay ku rideen aabahood aadeen ay u sheegeen inuu dhuwa cunay وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون waxay la yimaadeen qamiiskii nabi yuusuf dhiig been ayagoo ku soo shubay waxay ahaayeen waa ilmihii nabi yuusuf la dhashay been bay sheegeen jannada ayayna galeen sidaa ayuu leeyahay aayadda ay yahuudda iyo kiristaanku runta ku sheegeenna waa aayadda ilaahay uu leeyahay وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب kiristaanku waxay dhaheen yahuud wax diina ma haystaan yahuuduna waxay yiraahdeen kiristaanku waxba diina ma haysto run bay sheegeen oo diin ma haystaan haddana naar bay galeen buu yiri aayadda ilaahay uu nafsadiisa xaqiisa uu ka hadlayna waxay tahay وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
جن إيا إنسي وما عبورين إيه عبدان مويه وحق إلهي سبحانه وتعالى أوليه أي آيات المانتي آيات كجرت هذا النبي هذا وحيتهي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون معها إنان إذن لا إنما نحجع إنان إذن كرنو إلهي إذن كيسمويه إذن مكيني كرنو آيات أي كجرت هذا الملائكة وحيتهي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إله وحقاله يا أقول ملهن وحي أدنا برطيمويه آيات هذا أهل الجنة وكجروا وحي تعب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلهي بقى ما هذا إسكاله كرايدي يمرقدي النار عن كبقيني عذاب كنا بدبادية ونقبت بادية إلهي قاسي ربي قرناك إنا كشكرنا أي مذيهي آيات أهل النار كهذا القوض يكجر توحي تاي ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إله النار إن قصر حدان الله بنا فإنا ظالمون مرضا بحدان دنبغا أو كلا كل بنا أنك أيا ظلم بدن سدا أي نوعها كعلى عليان آيات هذا الكإبليس وكجر إلهين قرآن كوكشا وحيتاي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنيق أياك خير بدل آدم قول نار بعد عبورتي آدم ندوب أياك كعبورتي سيدا أيضا أيو شيغي حجاج ويل كبركو إنتي دميي بالسؤال ويدي وحيري وحادي شيختا قف لغا عبوري هودا إيا قف لغو بدادي هو إيا قف هو لغو دلي ويل كيرا وحيري روح هودا لغا عبوري والنبي عيسى عليه السلام قول نهبع لغا عبوري روح هودا لغو بداديينا والنبي سليمان دغيل إيا وحدا أشقين جرو وكو بدادي جري روح هودا لغو دلينا قولada hawada lagu baabiyayna waa qowm caado waxa lagu dilay iyaguna hawadii iyo dabayshii baa lagu halaagay xajaaj wuxuu waxaad ii sheegtaa ruux laga abuuray geed naf geed laga abuuray iyo ruux geed lagu dilay iyo ruux geed lagu badbaadiyay intuba ii sheeg wiilkii raa wuxuu yiri waxa geed laga sameeyo naf ahoo geed laga abuuray ushii nabi Muuse alayhi salaam markii ay maska isu bedeshay ayadoo geed ka samaysan bay mas isu bedeshay hadana ruuxa geedka ilaahay uu ku badbaadiyay waa nabi nuuxo markii dhulkii xirka biyaha ka yimaadeen dooni geed ka samaysan baa ilaahay ku badbaadiyay ruuxa geedka lagu dilayna waa nabi zakariya oo dadkiisu ay ku dileen xajaaj wuxuu yiri waxaad ii sheegtaa ruux biyo laga abuuray ruux biyo lagu badbaadiyay dhexdooda iyo ruux biyo lagu halaagay wuxuu yiri wiilkii yaraa waxa biyo laga abuuray aadam alayhi salaam waxa biyo lagu badbaadiyay nabi muuse oo badi ka gudbay waxa biyaha lagu dilayna fircawn iyo qowmkiisa xajaaj wuxuu yiri waxaad ii sheegtaa wax naarta qof naarta laga abuuray iyo qof naar laga badbaadiyay wiilku wuxuu yiri naar waxa laga abuuray ibliis naarna waxa laga badbaadiyay nabi ibraahim markii lagu riday godkii dabka ahaa xajaaj wuxuu yiri marka wiilkii yaraa uu su'aal kale weydiyo waxa uu yiri waxaad ii sheegtaa buu yiri wabiyada jannada iyo tiradooda ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yiri wabiyada jannada mara aad bay u fara badan yihiin oo tiradooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa garan kara soo ilaahay ma dhihin buu yiri mathalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min laban لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
ilaahay soo ma dhihin jannada waxaa ku jiro webiyaal biyo aan isbedelaynin webiyaal caana aan dhadhankoodu bedelmaynin iyo waxaa ku jiro webiyaal khamri oo qofka caba qolada cabta ay dhadhansanayso iyo webiyaal malab oo saafiyaal ah ayaa ku jira soo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma uusan dhihin markaasuu wiilkii yaraa wuxuu yidhi dhammaantood buu yidhi webiyaasha aad arkayso hal meel bay ka soo wada burqadaan iyagoo caano iyo biyo iyo khamri iyo muxuu ahaa malab isla ah bay haddana hal meel ka soo burqadaan iskumana darsamaan buu yidhioo biyihii caanihii baa istaabta lama dhahayo wuxuu yidhi mid la mid ah webiyaasha iyadu sidaa ahna kuwa la mid ah adduunyada ayaa laga helaa oo madaxa bini'aadamka ayaa laga helaa buu wiilkii yaraa wuxuu yidhi webina dhadhankiisa wuxuu yidhi waa dhanaan webina dhadhankiisu waa kharaar webina dhadhankiisu wuu mac yahay haddana webiyada iyaga ah iskuma darsamaan oo wuxuu ula jeedaa isha biyaha ka soo baxo ilintu waa dhanaan buu yidhi dhegta dhukayga iyo malaxda ka soo baxdana waa kharaar afka candhuufta ka soo baxdana waa macaan saddexduna madaxii bay ka soo baxaan haddana iskuma darsamaan xajaaj wuxuu yidhi ahlu jannuhu way cunaan way cabbaan mana saxaroodaan ee wax la mid ah ahlu jannaha ma laga helaa adduunyada ruux intuu cuno cabo aan saxaroon wiilkii yaraa wuxuu yidhi haa waa uurku jirka caloosha hooyada ku jiro ubadka yar waxbuu cunaa waxbuuna cabaa mana haddana caloosha hooyada ku dhex saxaroonayo xajaaj wuxuu yidhi waxaad sheegtaa buu yidhi dhiiggii ugu horreeyo adduunyada ku dhibcay markii ilaahay uu aadam iyo abuurayba dhiigga ugu horreeyo dhulka ku dhibcay ma sheegi kartaa markaasuu wiilkii wuxuu yidhi haa waa dhiiggii xaawo ka yimid xaydka ahaa caadadii kaa ayaa ugu horreeyey wax dhiig ah oo dhulka ku dhibca xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa caqliga bal wax iiga sheeg iimaankana wax iiga sheeg caqliga wax iiga sheeg iimaankana wax iiga sheeg xishoodka wax iiga sheeg deeqsinimada wax iiga sheeg geesinimada wax iiga sheeg karaamada iyo sharafka wax iiga sheeg shahwada iyo qooqana wax iiga sheeg buu yidhi waad garatay soomaan wiilkeedaa wuxuu yidhi haddaan wax kaaga sheego caqliga ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 ragga ayuu siiyey halna dumarka ayuu siiyey iimaanka ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 reer yaman baa la siiyey halna adduunka kalaa loo qaybiyey xishoodka ilaahay wuxuu u qaybiyey 10 9 dumarka ayaa la siiyey halna ragga ayaa la siiyey deeqsinimada ilaahay wuxuu u qaybiyey 10 9 ragga ayaa la siiyey halna dumarka ayaa la siiyey geesinimada iyo sharafka ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 carab baa la siiyey halna adduunka ayaa loo qaybiyey shahwada iyo qooqa iyo damcuna ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey waad garatay soomaa wuxuu yidhi ilaahay caqliga 10 buu u qaybiyo 9 waxa uu siiyey ragga halna dumarka ayuu siiyey iimaanka ilaahay wuxuu u qaybiyey 10 oo 9 reer yaman baa la siiyey halna adduunyada kale ayaa loo qaybiyey xishoodka ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey deeqsinimada ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 waxa uu siiyey ragga halna dumarka ayuu siiyey geesinimada iyo sharafka ilaahay wuxuu u qaybiyey 10 carab 9 buu siiyey sharaf jaceelka iyo geesinimada carab 9 buu siiyey halna waxa uu siiyey adduunka inta ka soo hartay qooqa iyo waxdoonkuna damaca ilaahay 10 buu u qaybiyo 9 dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey xajaaj markaas wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa su'aal baan ku weydiinayaaye qofka muslimka sanadkii hal mar wax ku waajibay ii sheeg wiilku wuxuu yidhi waa soonka xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa qofka muslimka cimrigiisa hal mar wax ku waajiba wiilku wuxuu yidhi waa inuu beydka ilaahay u soo xajiyo xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa waxa kuugu dhow hadda adiga agtaada kuugu dhow ii sheeg wiilku wuxuu yidhi aakhiro ayaa ii dhow aakhiro ayaa hadda ii dhow xajaaj wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa xumaan ka fog buu yidhi qofkuu doono ayuu xikmad siiyaa buu yidhi ma arkin buu yidhi wiil adiga cilmi iyo caqli iyo maskax kugu dhan ma arkin wiilkii yaraa wuxuu yidhi waan mudanahay in la isiyo waan mudanahay inaan helo xajaaj wuxuu yidhi dadka yaa u xaqnimo badan inay khaliif noqdaan qofka inuu xukumo dad xukumo yaa u xaqnimo badanoo qofka inuu dadka hogaamiyo wiilkii yaraa wuxuu yidhi kan dadka markay khaldamaan iska cafiyo wanaagna ugu bedela labada qofood ishaysatana cadaalad u sameeyo xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa haweenka bal wax iiga sheeg haweenka bal wax iiga sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi wiil yar baan ahoo 10 jir ah haweenna weli ma aanan guursan dumarna weli ma aanan shukaansan welina lama aanan seexanoo ma aanan jeclaan maxaad iga weydiinaysaa balse haddii aad jeceshahay
waxa dadka ay ku sheekaystaan meelaha ka maqmaqlay baa wax kaaga sheegayaa markaas wuxuu yiri xajaajow hadaad hesho gabar 10 jir ah xuurul ciin baad gacanta ku haysaa buu yiri gabar 10 jir hadaad hayso xuurul ciin ayaad gacanta ku haysaa iyo tankaafakan waa garab Soomaan xuurul ciin baad gacanta ku haysaa iyo tankaafakan 20 jir hadaad heshana muraayad iyo wax dhaldhalaalayo qurux badan oo fiiriso indhahaagu qabtaan waad haysataa 30 jir hadaad heshana jannatu naciim janna iyo barwaaqaad gacanta ku dhigtay 40 jir hadaad heshana cad iyo cadiin iyo baruur baad gacanta ku haysaa 50 jir hadaad heshana wiilal iyo gabar waad heshay 60 jir hadaad aragtana 60 jir maxaad iga weydiinay oo faa'iido kugu jirta maxay tahay buu yiri dambiya kugu jirto 70 jir iyo 80 jirna waa cajuusa gabowday isaga fogow ka carar 90 jirna waa shaydaane ka tag 100 jirna waa asxaabul jahiim isaga carar xajaaj intuu qoslay qosol la dhacay buu wuxuu yiri dumar teeba u wanaagsan dumar teeba u wanaagsan wiilkii yaraa wuxuu yiri dumar waxa u wanaagsan buu yiri tan muuqaalkeeda iyo dhismaheeda jirkeeda quruxdeeda ay ku qanciso xajaaj wuxuu ku yiri waxaad ii sheegtaa buu yiri qofkii ugu horeeyay ee shicir tiriya adduunyada inta la joogay ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yiri aadam calayhi salaam buu ahaa ruuxii ugu horeeyay ee shicir tiriyay wuxuuna tiriyay wiilkii qaabiil markii uu dilay walaalkii haabiil uu dilay ayuu nabi aadam isagoo baroor diiqanayo shicirkan tiriyay oo wuxuu yiri bakat ayni ishaydi way ooysay waxuqa laha bukaaha inay ooysana xaq bay u leedahay wadamcu al-ayni isha ilinteeda munhamilun yasiixu way dareeraysaa wax dareeray weeye famaadii maxaa igu dhaco la ajuudu aanan ugu deeqayni wiilkayga bisakbi damcin ilin inaan u qulquliyo wahaabiilu wiilkii haabiil ahaana tadammanahu ad-dariihu dhulka hoostiisa iga maray ramaa qaabiil waxa uu riday uu ku tuuray dhagax haabiilan akhaahu walaalkiisi haabiil ahaa ayuu dhagax ku dilay والحد في الثرى الوجه الصبيح وحيري حدكنا سيدا موقته وجهه إفيي وآسمي تغيرت البلاد إفكوردن وإسبدلي تغيرت البلاد إفكوردن إيادون كوردن وإسبدلي ومن عليها يوحي كد النول فوجه الأرض ملك دشيسة مغبر كشيح وكؤس بدل يوم كيس الدور سومي تبدل كل ذي طعم ولون مدول بوددا لها مذب لها وئس بدلي لفقدك وإنت أنكوايي يا صبيح يا مليح كي وناكسنا أنجع لايو أيا هابيلو إن تقتل هداد شيء ولعلك فإن تقتل له هابيلو هدين لقدلي فإني عليك الدهر مكتئب قريح انت آنولهي وانكو تيرانيونيا او اديق ايان كو الوليا سدا ايو نبي آدم كو علي فأنت حياة من في الأرض جميعا انت دنيا كنو النرشوذ واديق وقد فقدوك يا روح وريح كي عرف يوناك سنايو ويكوايين وأنت رجيح قدر يا فصيح وحاته الروح لوايي او لوباهنا سليم بل سميح بل صبيح وحاته الروح مغنغلي بدباده كجري بل عسين بدن بعضهين بل روح وناكسن بعضهين ولست ميتا متهت روح غيريودي بل أنت حي وادناش هيبوري وقابيل الشقي دقمك كجري جعنت كلتغي هو الطريح كدنتي ما أنت أدوية وإستقع عليه السخط من رب البرايا عرض إلهي دشي سهقود عضو وأنت عليك تسليم صريح بدبادو إن بدقريد شعلها أهاتو سيدا أيكو علي نبي آدم ويلكي سمك لدي markuu calay kadib baa shicirkii labaad oo jawaabta waxa u tiriyay ibliis oo meel ka dhow nabi aadam taagana baroordiiqiisana maqlayay wuxuu yiri tanuuxu waa qaylinaysaa cala albilaadi magaalooyinka ayaad ku qaylinaysaa waman calayha ay cid dul saaran baad u qaylinaysaa wa fil firdawsi jannadina qad daaqa bika alfasiixu ciriir kugu soo noqotay jannaduna ciriiri bay kugu soo noqoto adii ilmahaago janno ku jiro ayaad ku soo noolaan weysay وكنت بها جنة آيات كنولد فردوسو وزوجك يويل كاغا وزوجك حاس كاغا في نعيم برواق آيات كسقنوهدين
min almawlaa allaha idin abuurta uu idin siiyey waqalbuka mustariixun qalbigaagana wuxuu ahaa qalbi raaxaysanaya khadactuka aniga ayaa ku khayaamay fii dahaa'ii maskaxdaydii ayaan kugu khayaamay uma makrii dhagartayda beenta aheedun kugu dhaartay baan kugu khayaamay ilaa an faataka alcayshu arashiixu noloshii barwaaqada badneed ee jannada ilaa ay kaa soo gudubtay faqaala alxajaaj xajaaj wuxuu yidhi marka ii sheeg buu yidhi wiil yahow carab shicir ay tirisay midka ugu qiimaha badan ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi shicirkii uu tiriyey xaatimu taa'i ayuu ahaa markii uu yidhi wa ukrimu dayfa waxaan karaamaynayaa martida xatman qasab iyo dirqin anigoo ay igu tahay xiina yatruqunii markuu ii soo garaaca albaabka qabla alciyaali intaanan carruurtayda siinin waxa ay u baahan yihiin calaa cusrin haddii faqri uu yahayo wa iisaarin iyo haddaan dhaqaalo haystaa intuba ilmahayga waxaan ka hormarinayaa martida albaabka ii soo garaacdo ninkii yidhi shicirkii uu tiriyey ayaa ugu qiimo badan shicir la tiriyo xajaaj wuxuu yidhi wiil yahow waad mahadsan tahay waadna wanaajisay cilmigaagii faraha badnaana waad nagu deeqday ee waxaa qasab ah annaguna inaan ku karaamayno waxaan ku siinayaa buu yidhi 1,000 diinaar waxaan ku siinayaa dhar qurxoon waxaan ku siinayaa gabar waxaan ku siinayaa seef waxaan ku siinayaa faras xajaaj markaasuu si hoose intuu isula hadlay wuxuu yidhi wiilkan hadduu qaato faraska waan dilayaa maya hadduu faraska qaato wuu iga badbaaday inta kale laakiin hadduu qaato waan dilayaa sidaa ayuu xajaaj isu yidhi wiilkii buu arrintii u sheegay arrintii baa la keenay waxaa la keenay lacagtii 1,000 diinaar ahayd iyo maradii qurxooneyd iyo gabadhii iyo seeftii iyo faraskii baa la keenay markaasuu xajaaj wuxuu yidhi wiil yahow waxaa doonta ka dooqo wiilkii intuu islahaa keed qaadataa baa gabadhii addoontii ahaydoo wiilka la siinayo ku jirta wixii la qaybinayey baa intay wiilka u iljibisay bay waxay ku tidhi aniga i qaado waxaan odhan anaa kaaga fiican lacag maxay kuu taraysaa faras muxuu kuu tarayaa seef maxay tartaa mara qurxoon maxay sheegtaa aniga ayaa kaaga fiican aniga i qaado intay wiilka u yara iljibisay markaasuu wiilkii wuxuu yidhi dan kaamalihi buu yidhi dan kaamalihi markaasuu shicir yar u tiri wuxuu yidhi lijaankan iyo madaxan guduudan ee ruxmayo faraskii buu ula jeedaa ayaan ka jeclahay waxa aad iigu iljibinayso inaan adiga ku qaato ah waxaan ka baqayaa buu yidhi haddaan firaashkii gogasha ku duldhacoon xanuunsado cilladii iyo jiradaydana ay dheeraato inaadan ila sii joogin waxaan ka baqayaa haddaan meel haadaan ka dhacno zamankuna uu i bedelo inaadan ii gargaarin jiis iyo wax haddaan noqdo inaadan ii gargaarin waxaan ka baqayaa haddaad lacagta yaroon haystood iga weyso in aad dadka lacagta lahoo cadowgayga ah iga raacdo gabadhii baa u jawaabtay waxay tidhi ilaahay baa xumaan ka fog bay tidhi waxaad i tidhaahdaa ayaan samaynayaa haddaad gacantayda bidixda goyso midigtaydana aad goyso sirta ninkayga qalbigayga ayaan ku qarinayaa waxaan ku qancayaa wixii yar uu ii keeno iyo wixii badanba haddaad ila noolaato dabcigayga waad garan doontaa waxaad ogaan doontaa ruux lala noolaada kan ugu khayr badan inaan aniga ahay ayaad ogaan doontaa waa garsooma xajaaj wuxuu yidhi marka gabadhii buu arko gabay tirinayso wiilka u iljibinayso hoogto ma xishootid miyaa wiilka intaad u iljibisay baad weli shicir ugu jawaabaysaa miyaa wiilkii yaraabaa marka intuu hadlay wuxuu yidhi xajaajow waxaad ii keentay buu yidhi faras 1,000 diinaar mara qurxoon gabar seef haddaad khiyaar isiisood itiraahda keed qaadan lahayd faraskaan qaadanayaa buu yidhi aniga haddaad khiyaar isiiso faraska ayaan qaadanayaa waa faraskii la yidhi hadduu qaato wuu ku badbaadayaa faraska ayaan qaadanayaa ayuu yidhi haddaad khiyaar isiiso adiga laakiin haddaad xalaal tahay oo dhiig xalaal iyo dhacaan xalaala aad ka dhalatay kulli baad isiinaysaa xajaaj wuxuu yidhi qaado ilaahay kuuma barakeeye qaado kulligooda ilaahay kuuma barakeeye wiilkii yaraa wuxuu yidhi waan kaa gadoomay buu yidhi adigana ilaahay wax ka dambeeya intaad isiisay kuma siiyo ani adigana mar dambe ilaahay nama kulmiyo wiilkii yaraa markii isku qaatay faraskii 1,000 diinaar maradii seeftii gabadhii markuu isku qaatay buu wuxuu yidhi xajaajow xaggeen ka baxaa xajaaj gurigiisa albaabo badan buu lahaa irdaha qaar markii laga baxo qofka madaxa laga gooyaa qaar qofka gacmaha laga gooyaa
qaar qofka xabsi baa la dhigaa qaar qofka waa la karaameeyaa xageen ka baxaa buu yidhi xajaajow xajaaj wuxuu ku yidhi albaabkaas ka bax buu yidhi haddaad ka baxdo waad ku badbaadaysaaye dadkii meesha fadhiya waxay ku yidhaahdeen wiilkan sidan kula hadlay ad adeegan carabta aysan qabin kula hadlay hadalladan jawaabahan xunxunka ku siiyey albaabka uu ku badbaadi lahaa uu ka bixi lahaa maxaad ugu tilmaantay halla dilay ma albaabka lagu dili lahaa u tilmaantid xajaaj wuxuu yidhi hadduu iska bixi lahaa albaab xun ka bixi lahaa ma aanan celiyeen laakiin wuu ila tashaday buu yidhi xageen ka baxaa ayuu yidhi qofka haddii lala tashadana waa inuu aamin noqdaa qof lala tashaday waa qof la aaminay wiilkii yaraa wuxuu ka baxay albaabkii buu ka baxay isagoon waxba la gaarsiinin gabadhii faraskii 1,000 diinaar maradii qurxooneed seeftii intiiba isla qaatay buu ka baxay ilaahayna uu ku badbaadiyey qisadeennii intaa ayay ku soo dhammaatay